الرحيم waxaan qaadanaynaa cashirkeenii 28aad waxaan soo qaadanay 27 cashar casharadan waxaan dhahnay total free waaye qof walbo afka Soomaaliga ku hadlayo wuu u furan yahay wuu ka faa'iideysan karaa waxaan dhahnay book ayaan diyaarinay bookgaas qofka u baahan wuu iga soo codsan karaa Muqdisho meel alaal meeshuu ka joogo waa lagu geynayaa haddii aan marka cashirkeena u guda galno mideeda kale waxaa naga heli kartiin bageena aan ku leenahay youtube-ka xirfad.com computers and technology ayaa naga heli kartaan marka tiktok-gana waa dhignaa oo macnaha magacana waa isku mid oo waa xirfad.com haddaa qorto wuu kuu soo baxaya marka labadaas platform waa naga heli kartaan haddii aan marka cashirkeena u guda galno casharo badan ayaan soo qaadanay oo waxaan kasoo bilaabnay kow oo maaragtay casharadan waxaan dhahnaa waa basic waa qeybaha hoose ee foundationka conceptiga inaad fahanto inta badan waxaan ku dadaalaynaa waxyaabaha la isticmaalo maxay yihiin qofka inuu faham guud ka haysto taasaa muhiimadda ay tahay kadib hadhowda qofka practical asaa u samayn kara laakiin hadda fahan server maxaa la yidhaahdaa ram maxaa la dhahaa muxuu ah cpu maxaa la dhahaa network soo u shaqeeyaa waxyaabahaas ayaan baranaynaa macnaha qofka basic ayuu ka dhismayaa markaas kadib ayuu wuxuu u gudbayaa muxuu ahaa qaabkii configurationka loogu sameyn lahaa oo markaas loo sameyn lahaa in server aad dhisto in maaragtay computer aad bildi karayso inta soo gadato ramkii iyo cpu-gii wax inta gooni usoo gadato kadib ayaad isku xirxiraysaa laakiin qofka hadduusan ka seenin laakiin ram waxa la yidhaahdo ama la yiraahdo muxuu ahaa cpu waxa la yiraahdo waxba macna ma ku sameynayso laakiin wixii inaad fahantid ram muxuu yahay cpu muxuu yahay server maxaa la lahaa network isugu xirmaa waxaas dhan qofka inuu fahmo ayaan ku dadaalnaa marka conceptiga inaan fahano ayaan ku dadaalinaa insha Allah marka waxaan soo qaadanay web server ayaan soo qaadanay iyo waxaan soo file server ayaan soo qaadanay cashirka u dambeeyay hadda xasuustiin maanta waxaan qaadanaynaa printer server ayaan qaadanaynaa servaha waa noocyo badan yahay ayaan dhahnay waa dhowr qayb ayuu ka kooban yahay servaha waxaan hor usoo qaadanay hadda muxuu ahaa web servaha oo website-ka quseeya website-yada ayaa lagu hayaa file servihii applicationadii iyo faylashii iyo maaragtay waxyaabihii kale oo maaragtay ayaa lagu hayaa muxuu ahaa file servaha printer servaha wuxuu hayaa printerka ayuu hayaa printerka qaabku u haynayaa printerka wuxuu u haynayaa in hal printer ama dhowr printer la share gareeyo waxaa ku saamaxayo servaha ayaa ku saamaxayo servaha macnaha waa database waaye xagga ayaa printerka lagu hayaa asaga waxaa laga dhigayaa share laga dhigayaa kadib ayaa waxaa la sameynayaa in markaas qof walbo permissionkii uu ku habboonaa ayaa la siinaya hadduu read keliya uu maaragtay uu rabo uu maaragtay uu sameeyo kale ama maaragtay inuu maaragtay pagekii uu wax ka bedelo kale ama maaragtay inuu maaragtay print gareeyo oo waraaqdii documentigii uu print gareeyo marka waxyaabo badan ayaa laga maamulaa printer servaha dhowr printer 4 printer camal kambaniyada ilaan waxay isticmaalaan computer aad u fara badan ay isticmaalaan building ayaa waxaa laga yaabaa inay isticmaalaan marka computer walba printer haddii lagu xiro waxay keenaysaa in maaragtay costiga uu kor u kaco oo maaragtay computer walba uu u baahdo muxuu ahaa in maaragtay lasoo gado oo lagu xiro qof walba loogu xiro taas waxaa marka ka habboon si kambaniga marka waxa la raadinaya waxay tahay benefit ayaa la raadinaya waxa la raadinaya marka wax ugu weyn oo la raadiyo kambaniyada ay raadinayaan waxaa waaye in faa'iido ay helaan marka mar walba costiga ayay aad u maaragtay ugu dadaalaan costiga in maaragtay si loo dhimi lahaa marka 4 printer camal ay soo gadanayaan qaybta hoose qaybta dhexe qaybta saas ayaa la dhigayaa markaas waxaa loo sameynayaa printer server inta lagu xiro ayaa network inta lagu xiro ayaa share inta laga dhigo ayaa qof walba markaas uu soo bartilmaameedsanaya marka printer server-hana waa uu jiraa marka inaad fahantid printer server dib maxaa lagu yiraahdo waa inaad fahansantahay printer server enables many network users in dhowr wuxuu noo saamaxayaa in many network users isticmaala network-ga inay to share the common printer hal printer inay isticmaalaan ayuu maaragtay ayuu noo saamaxayaa printer server marka wuxuu ku leeyahay the printer server might be directly attached to the network waxaa laga yaabaa in network uu ku xiran yahay lagu xiro ayaa laga yaabaa oo attached to the server naftigiisa in lagu xiro ayaa laga yaabaa server in directly loogu xiro ama network ahaan in loo sameeyo ayaa la sameyn karaa labadaas waa la sameyn karaa in maaragtay computerkii toos inta u geliso ama aad print gareyso iyo in network-ga lagu xiro oo markaas kadib dhowr qof ay share gareeyaan ayaa maaragtay loogu talagalay marka printer server asaga halkaas ayaa ugu gudbinaa waxaa kaloo jira marka DHCP server ayaa jira dynamic host configuration
protocol ayaa jira oo loo soo gaabiyey DHCP. DHCP-ga muxuu yahay? DHCP-ga waxaa waaye computer walbo oo caalamka yaalo oo network internet isticmaalayo wuxuu u baahan yahay inuu IP address helo. hadduusan IP address helin internet ma isticmaali kartid. Mobilkaaga naftigiisa haddaa rabtid inaad internet ku isticmaashid waxaa u baahan tahay in IP address aad hesho oo ISP-ga qolada ISP-ga oo maaragtay sida Hormuud oo kale ay ku siisay oo kale ayaa maaragtay ayaa DHCP ayaa configuration ayaa lagu sameeyey ruutaha kadib ayuu ku siinayaa. waxaa kamid isticmaalaan DHCP server isticmaalaan server caadi ah oo bixiya IP addressyada. Computerka markii kow la geliyaba maaragtay internetka lagu xiro wuxuu helayaa marka laba siyaabood ayuu u heli karaa in DHCP uu ku siiyo iyo in manual loo geliyo computerkii manual inta tagto kadib maaragtay wuxuu ahaa adapterka network adapterka inta right click ku sameyso properties ka tagto markaas IP version 4 ma u baahan tahay version 6 ma u baahan tahay inta tagto kadib markaas aad waxaa gelinaysaa IP address ayaa gelinaysaa. qaabkaas waxaa la yirahdaa manual u geli waayo. marka inta badan laakiin waxaa la isticmaalaa macquul ma ahan company dhan oo intaasoo kun oo qof u shaqeyso in computer walba inta la dul tago IP addresska si manual loo geliyo. xoogaa way aad u dhibanta shaqo aad u fara badan waay. laakiin waxaa la sameeyey si taas looga gudbo DHCP server la sameeyey. server marka wuxuu sameynayaa qof walba waxaa loo sheegayaa scope ayaa la sameynayaa from waxaa leeyahay labo ilaa waxaa leeyahay 100 ama 200 oo qof qofkii kugu soo xirma si qofkii kusoo oo computer network kusoo xirmaba IP addresska sii ilaa laba ayuu ka bilaabaa 3 saas si loo kala horeeyo computer sida ugu xirmaan oo u kala horeeyaan ayuu u siinayaa marka DHCP server. DHCP server marka muxuu yahay? wuxuu bixiyaa haddii lagu weydiiyo DHCP server muxuu yahay? wuxuu bixiyaa IP addresska ayaa leedahay computer walbo ama mobile ha ahaado IP addresska waxaa siiya waa DHCP ama manual ayaa loo geliyaa. marka wuxuu ku leeyahay dynamic host configuration protocol DHCP oo loo soo gaabo DHCP server runs a software that automatically assign automatically ayuu wuxuu u siinayaa IP addresska ayuu wuxuu u siinayaa to the client station log in onto TCP/IP network markay ku soo xirmaan IP addresska ayuu DHCP server bixiyaa sida loo soo kala horeeyay ayuu u sameeyaa. marka scope marka la sameeyo waxaa la leeyahay 2 ilaa 20 bixi IP address ayaa leeyahay. marka qofka saas sameynayo waa adiga. qofka saas sameynayo oo configuration sameynayo waa qofka hadda course-kan qaadanayo oo biri markuu DHCP server configuration uu gaaro sameynayo. so marka hadda waxaa fahantaa laakiin DHCP muxuu yahay. course-ka kale waa gaari doontaa insha Allah. laakiin hadda DHCP muxuu yahay fahan waa IP addresska ayuu bixiyaa. configuration marka la sameynayo waa another course oo aad sameynaysa. laakiin hadda muhiimadda fahan DHCP muxuu yahay in computer walba uu helo IP address waxaana bixiya DHCP-ga ayaa bixiya. so marka wuxuu ku leeyahay marka network wuxuu ku leeyahay it eliminates the need to the manual assign permanently IP address. waxaa kaloo dhici karta marka in manual loo geliyo haddii loo baahdo in computeradii manual loo geliyo si permanent ah ayuu u heesanaya oo ma isbedbedelaya IP addresski oo wuxuu leeyahay si permanent ah ayaa maaragtay u helaya. laakiin dynamic DHCP-ga markuu bixinayo renewal waxaa dhici kartaa marka haddii hal maalin IP addresska ha ka dhaco qofka si security ahaan oo maaragtay si security ahaan haddii security ahaan loo cabsado waxaa la sameeyaa expired IP address ayaa dhacaya. marka waxaa dhacaya in IP addresska uu kaa dhaco oo 1 day lagu siiyo kale ama 2 days ama 1 week lagu siiyo lagu dhaho oo DHCP server ayaa waxaa loo sheegaya waxaa la leeyahay IP addresska markaa bixiso 1 day kadib ha dhaco IP addresskaas markaas u cusboonaysiin oo waxaa siisaa new IP address oo marka haddii ay haysato kale 192.168.100.2 haddaa haysatay oo maalin ay haysato uu kaa bedelaya wuxuu ku siinayaa .3 ayuu ku siinayaa ama .5 ayuu ku siinayaa uu kaa bedelaya. marka waxaas dhan waxaa laga sameeyay waa DHCP server. so marka wuxuu ku leeyahay in manual loo geliyo. DHCP software typically runs on a serveryaasha ayaa lagu run gareeyaa ayaa lagu sameeyaa configuration lagu sameeyaa. it also found waxaa kaloo ka heli kartaa network devices such as firewall kale waa lagu sameeyaa ISDN routers waa lagu sameeyaa oo ISP qolooyinkan routeryaasha oo hadda Hormuud ku soo kale ayagana DHCP waxay leeyihiin oo server ay leeyihiin oo configuration lagu sameeyo. modem routers way leeyihiin wuxuu ku leeyahay that allows multi users to access to the network hadday rabaan dhowr qof inay access gareeyaan internetka
waxay u baahan yihiin in maaragtay ay helaan IP address oo waxaana siinaya ruutaha ayaa siinaya. So marka DHCP server muxuu yahay? IP addresska ayuu bixiyaa. Any client ama mobile ha ahaado ama computer ha ahaado ama laptop ha ahaado, hadduu rabo inuu internet isticmaalo wuxuu u baahan yahay IP address. IP addresskaasna waxaa siiya laba siyaad buu u helaa in DHCP server uu ku siiyo iyo in aad manual u geliso oo adiga aad gashatid. So marka taas waa DHCP-ga meeshaas aan ugu gudubno. Waxaa kaloo jira marka DNS server, domain name system ayaa jiro oo loo soo gaabiyay DNS. DNS muxuu yahay marka? What is the DNS? DNS waxaa waaye wuxuu IP addresska ayuu magac u bedelaa. Tusaale ahaan oo kale waxaa la isticmaali jiray waagi hore hadda marka internet google youtube.com aa gasho kale ama facebook.com aa gasho magacaas yaa bedelayo. Magacaas waxaa bedelayo DNS-ka. magacaas waxa kow la isticmaalayo waa IP address. waxa aad garaacayso waa IP address. Computerku wuxuu fahmayo waa numberka ayuu fahmaya. Laakiin waxa bedelayo oo maaragtay ka dhigayo magac u bedelayo oo Facebook u bixinayo oo YouTube u bixinayo oo TikTok dhahayo waxa waaye waa DNS-ka ayaa bedelayo. Domain-ka ayaa DNS-ka ayaa bedelayo. Domain name system-ka ayaa bedelayo. waa maaragtay wuxuu ka sameynayaa qofka bini'aadanka maanta oo dhan ma xasuusan karo number. Tusaale ahaan oo kale hadda telephone numberka aa isticmaasho magac haddaadan ku qorin oo qof u sheegto qofkaas ma fahmayo. Laakiin haddaad dhahdo Maxamed ama Cali qofka aa siiso wuu fahmaya, beri wuu kusoo wici karaa. Laakiin haddaa mar walba aa number siiso, qof walba number aa siiso, beri ma ku fahmaya. Numberka lama xasuusan karo. Bini'aadanka human being number ma xasuusan karo, laakiin magac wuu xasuusan karaa. Marka saasa waxaa loo caqabadan waa caqabad jirta. Waagi hore number ayaa la geli jiray meesha google.com la garaacayo 192.168 aa la garaaci jiray kow. Markii dadkii la dhahay war macquul ma asaan ayaa waxaa la sameeyey DNS server ayaa la sameeyey. DNS server maxaa waaye? IP addresska oo computerka uu leeyahay ayuu wuxuu u bedelayaa magac ayuu u bedelayaa. IP addresska oo uu leeyahay facebook.com muxuu ahaa google.com youtube.com any website oo la galo magaca waxa u bedelo waa DNS-ka. Domain name system-kan ayaa bedelayo. Waa protocol oo maaragtay la isticmaalo oo maaragtay server dhan waaye. Server waaye oo kambaniyada waaweyn ay leeyihiin. Waa kambaniyo waaweyn ayaa sameeyey maaragtay qaacidadas dadaa dejiyey. Waxaa la yidhi waa in la bedelaa numberka, waa in magac loo bedelaa. So marka hadda isla fiirno marka domain name system is a protocol that provides common naming convention across the internet. wuxuu noo bedelaa wuxuuna siiyaa common name-kii ayuu bedelaa oo muxuu macnaha IP addresska ayuu bedelaa. Wuxuu ku leeyahay marka this distributed database support hierarchical naming system oo maxaa ah google.com hierarchical waaye. google.com saas isugu xiran .s maxaa fiir hadda kale Soomaaliya kale .so waa fiiriya Soomaaliya kale .uk ujeedaa fiiri UK markaad joogtid website-yada isticmaala maxaa waaye .amazon.uk .com.uk waa hierarchical waaye. macnaha Amazon waa hierarchical saas isku xiga marka .com waa hierarchical .uk ujeedaa waa hierarchical isku xiga waa. Marka waxaas dhan waxaa sameynayo waa domain name system-ka ayaa DNS-ka ayaa noo sameynayo waxaas. Marka Soomaaliya markii la dhahana markaa rabtid oo kale inaa google.so camal waaye ayaa la isticmaalaya. Hindi markii la joogo in waa umalena. Hindi markii la joogo in ayaa la isticmaala. Google in camal ayaa isticmaala. So marka saas waxa sameynayo waxaas dhan waxa bedelayo waa domain name system-ka waaye. Marka wuxuu ku leeyahay DNS provide name resolution for IP networks ujeedaa. IP network ayuu resolution ku sameynayaa. Name-kii ayuu IP addresska ayuu wuxuu u bedelayaa magac ayuu u bedelayaa. So marka include the internet the DNS maintains database of domain and host naming and their corresponding IP address. Magacooda IP addresska u lahaa ayuu magac u bedelaa. Waa arki doonaa anagoo bedelayno hadda tusaale ahaan oo kale command line haddaa gasho kale CMD haddaa qorto oo maaragtay aad dhahdo maaragtay command-kii aad qorto oo maaragtay lagu bedelayay wuxuu ku soo saaraya marka google.com ayaa qoraysaa markaasaa wuxuu ku soo saarayaa IP addresska uu google.com isticmaalo. Marka google IP addresska uu isticmaalo haddaa soo qaado oo meesha kor aad ku qorto website-ka kor aad ku qorto
aad 192.168 oo ama 70.1 saasoo kale aad ku qorto wuxuu kusoo saaraya google.com ayuu IP addresska oo googleka uu leeyahay haddaad ku qorto kor wuxuu ku sameynayaa google.com ayuu kusoo saaraya so marka IP addresska haddaad ku qorto google.com uu kusoo saaraya google ayuu kusoo saaraya haddii marka google.com kor ku qorto meesha lagu qoro google.com website wax lagu qoro haddaad ku qortana google ayuu kusoo labada marba marna haddaa number ku qorto uu kusoo saaraya mar google haddaa marka labada dhinac waa isticmaali kartaa laakiin bini aadanka ayaa loogu talagalay inay fahmaan magaca that's why DNS domain name systemka loo keenay so marka haddii lagu dhaho what is the DNS waxaa leedahay IP addresska ayuu wuxuu u bedelaa magaca ayuu u bedelaa DNS-ka danfacsa macnaha haddii lagu weydiiyo what is DNS hadii lagu dhaho waxaa leedahay magaca wuxuu IP addresska ayuu wuxuu u bedelaa magac ayuu u bedelaa macnaha conceptiga intaas waaye inaad fahantid waaye bini aadanka ma fahmaayo number in maanta dhan number uu qoro oo maaragtay website walba haddii la yiraahdo google oo kale haddii number lagu sheego kale youtube oo kale number lagu sheego kale ma fahmi kartid dadka ma fahmi karaan laakiin google.com qofku uu fahmaa youtube.com tiktok.com uu fahmaa marka muhiimadda inaan fahno waaye what's the DNS-ka waxaa waaye magaca IP addresska ayuu magac u bedelaa waxaa kaloo jira marka proxy server waxaan iska dhameynaynaa proxy server what's the proxy server waxaa waaye security ahaan ayaa loo isticmaalaa proxy server tusaale ahaan oo kale kambaniyada markay rabaan inay internetka dadkooda clientigooda ay rabaan inay internetka ku xirmaan ama ay visit gareeyaan website inay visit gareeyaan waxay sameeyaan IP addresskooda markay garaacaan google.com ama youtube ama website inay galaan ay rabaan waxaa dhici karta marka in hacker lagu sameeyo oo la hackereeyo oo maaragtay detailskooda la helo IP addresskooda marka helo in network la soo galo oo maaragtay markaas network dhibaato loo geysto marka proxy server man of the middle camal ayuu taagan yahay marka company wuxuu leeyahay proxy server ayuu leeyahay marka client uu rabo inuu visit gareeyo website wuxuu marayaa proxy server ayuu marayaa proxy server markuu maro proxy server ayaa wuxuu iska dhigayaa wuxuu active gareynayaa userkii rabay inuu website-ka isticmaalo marka IP addresska oo userka uu lahaa ayaa wuxuu u bedelayaa IP addresska isaga uu lahaa marka isaga IP addresskiisa waxba lagama qaadayo tusaale ahaan oo kale 192.168.1.3 oo kale uu isticmaalaa userka oo company-ga u shaqeeyo markuu soo diro datada oo rabo inuu isticmaalo website wuxuu imaanayaa proxy server ayuu imaanayaa proxy server markuu yimaado kadib proxy server ayaa wuxuu iska dhigayaa userkii kadib wuxuu sameynayaa marka IP addresskiisa ayuu dirayaa marka qofkan middle oo attackerka ah oo rabo inuu xado datada ama IP addresska wuxuu maaragtay capture ku sameynayaa proxy server marka proxy server waxba kama qaadi karo proxy server markuu yimaado uu soo noqdo IP addresska oo proxy server wuxuu ku egyahay marka oo leeyahay stack joog la leeyahay proxy server kadib IP addresskii ninkii kale oo qofkii rabay userka ahaa ayuu datadii u gudbinayaa kadib datada waxaa helaya clientigii company-ga u shaqeynaya soo marka meesha maxaa dhacay in la haki gareeyo oo la joojiyo traffiga oo banaanka ka imaanayo in lagu haki gareeyo proxy server okay taas faa'iido waaye proxy server faa'iidada kale laga helo waxay tahay clientiga markuu website isticmaalo tusaale ahaan oo kale youtube uu galay oo kale ama another page website kale oo u baahan yihiin company-ga oo la isticmaalo ayuu galay markuu company-gii marka userkii uu isticmaalo uu datadii ay soo noqoto proxy server ayaa lagu keed gareynaya website uu galo user walba oo company u shaqeeya website-yada ay galaan oo dhan waxaa lagu haynaa database-ka oo proxy server ayaa la gelinaya waa lagu haynaa hadhowdi marka qofkan userka markuu rabo mar labaad inuu booqdo website-kaas meesha uu bixi lahaa oo website-kii Mareykanka uu aadi lahaa ma aadayo wuxuu ka helayaa proxy server ayaa lagu keed gareeyay website-kii soo marka meeshaas maxaa nooga dhalanayo bandwidth-kii oo ma aragtay in la yareeyo oo ma aragtay traffic-ka oo ma aragtay slow keeni lahaa in la yareeyo maadaama aan ka helayno meesha aan banaanka u bixi lahayn oon aadi lahayn website-ka servahooda waxaaba markii aan isticmaalno oo aan galno mar labaad waxaaba noola dhigayaaba proxy server ayaa loo dhigaa marka faa'iido labaad waa maxaa kaloo marka noo soo dhaca meesha faa'iidada saddexaad laga helayo waxay tahay in la yareeyo bandwidth-kii
iyo speedkii in la ziyaadiyo ayaa meesha nooga dhalinayso. oo markii aan rabno inaan website isticmaalno proxy server ayaan ka helaynaa. oo marka koowaad laakiin waa banaankan aadnay kasoo aan ka galnay, laakiin markii dambe soo noqodkii cacheka ayuu noo gelinayaa, database ayuu noo gelinayaa oo noo dhigayaa any website oo la booqdo wuxuu gelinayaa databasekiisa. faa'iidada saddexaad maxay tahay marka? faa'iidada saddexaad waxay tahay kambaniyadu waxay sameeyaan tracking ayay sameeyaan, oo useradooda websiteyada ay galaan ayaa maaragtay waxaa lagu sameeyaa tracking. oo userkan muxuu isticmaalay, ileen waxaa laga yaabaa userada qaar oo u shaqeeya kambaniga inay waxyaabo qaldan ay isticmaalaan, oo maaragtay muxuu ahaa website aan loo baahnayn ay isticmaalaan. marka waxaa la sameynayaa tracking ayaa lagu sameynayaa. waxaa la sameynayaa proxy server inta la galo userkii loo baahdo oo markaas oo kambaniga u shaqeynayay oo laga shakiyey in inta la galo tracking lagu sameeyo websiteyada uu isticmaalo, waxyaabaha uu galo dhan lasoo helo, oo markaas kadib lagu qaado markaas ciqaabtii markaas oo u baahnaa, ama in shirkadii laga buriyo ama maaragtay wixii markaas lagu sameyn lahaa lagu sameeyo. marka faa'iidadaas kale waxay tahay in qofkii clientigii tracking lagu sameeyo oo websiteyada uu galo waxyaabaha uu sameeyo dhan la ogaado. proxy server marka faa'iidada koowaad maxay ahayd in uu actigareeyo userka inuu iska dhigo markuu banaanka aadayo oo website uu galayo. marka faa'iidada labaad maxay ahayd in cacheka loogu heenayo, databaseka loogu heenayo websiteyada dhan ay galaan kambaniga uu isticmaalo, in cacheka loogu heenayo oo si speedka loo yareeyo. faa'iidada saddexaadna waxay ahayd in haddii loo baahdo user kambaniga u shaqeeyo in maaragtay tracking lagu sameeyo. so marka wuxuu ku leeyahay marka proxy server system wuxuu ku leeyahay isolated internal client from the servers by downloading and storing file behalf of clients. marka wuxuu iska dhigayaa behalf, maaragtay on behalf waa asaga clientiga uu iska dhigayaa markuu baxaayo, markay rabaan inay wax soo dejistaan ama file ay soo store ku sameeyaan, asaga ayaa iska dhigaya. proxy server ayaa wuxuu iska dhigayaa clientiga si securityga loo yareeyo. marka wuxuu ku leeyahay it interrupts requests from web based on other resources that coming from the client. ayuu wuxuu ku sameynayaa interrupt ayuu ku sameynayaa requestiga ay sameeyaan, ayuu wuxuu ku leeyahay ku sameynaya interrupt ayuu ku sameynaya. marka wuxuu ku leeyahay if it is not does if it does not have the data in its cache mujada, hadiisan uusan ku haynin cachkiisa, macnaha uusan marka hore clientiga qofkan clientiga isticmaalaya userka marka hore websitekan uusan isticmaalin, marka ugu horeysa ay tahay uusan cacheka uusan ku hayn, it generates complete new request packet using itself as resource. asaga marka wuxuu iska dhigayaa clientigan wuxuu sameynayo ama YouTube ama hadduu rabo inuu galo ama Google ama uu galo ama website cusub markaas uu galay hadduu jiro uusan gelin, hadduu jiro asaga ayaa iska dhigayo requestiga asaga sameynayo. soo noqodka marka wuxuu sameynayaa in cacheka uu ku hayo. marka in addition providing wuxuu ku leeyahay in addition si dheeraad ah wuxuu nagu sameynayaa to provide a security. mujada wuxuu noo sameynayaa uuna siinayaa security dheeraad ah ayuuna siinayaa. marka the data cache can also improve client response times and reduce network traffic. so marka taas maxay cacheka markii data lagu haayo oo youtube-yadii ama youtube-kii ama website-yadii wixii loo baahnaa dhan cacheka lagu haayo, haddii lagu haayo maxay can also improve, waxay noo improve garaynaysaa oo maaragtay noo dhalinaysaa client response inuu maaragtay response loogu sameyn lahaa intuu bixi lahaa oo website-ka Mareykanka yaalo ama server Mareykanka yaalo intuu tagi lahaa uu maaragtay uu codsiga ka sameyn lahaa cachekaaba lagu hayaaba. marka maxaa noo dhalinayaa marka time responding timeka oo response loogu sameynayo, iyo wuxuu noo sameynayaa reduce network traffic waxaa markii haddii banaanka mar walba u baxo clientiga ama userkii mar walba banaanka uu aado ama server yaalo Mareykanka ama maaragtay Ingiriiska yaalo ama China yaalo kale inuu tago, maxaa ka dhalanaya haddii cacheka naloo hayo it reduce, macnaha waxaa la xadiday oo lasoo yareeyey network traffic badan inuu dhaco, jam badan inuu dhaco ayaa noola soo yareeyey by providing frequent resources. macnaha mar walba waxay isticmaalaan frequently, haddaa maqashid marmarka qaar waxay isticmaalaan website waxaa jira mar walba ay isticmaalaan. so mar walba website-yadaas ay isticmaalayaan inta ay bixi lahaayeen, halka marka ugu horeysa markay baxaan mar labaadka waxaa loo dhigayaa cacheka ayaa loogu heenayaa oo maaragtay to the client from the local sourceska ayaa loo dhigaya, cacheka ayaa loo dhigayaa oo proxy server ayaa loo dhigayaa. so marka maanta maxaan baranay print server ayaan baranay,
DHCP server ayaan baranay, waxaan kaloo baranay DNS server ayaan baranay, iyo waxaan kaloo baranay proxy server ayaan baranay. Cashirka xoogaa maanta wuu dheeraa, laakiin inaan fahanno conceptiga inaan fahanno ayaa muhiim ah. So marka qof walba conceptiga ha fahmo insha Allah. cashirkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa. Wasalaam.